عفوا waxaan rajeynayaa qaybtii koowaad inay kala go'day qaybta labaad meesheeda aan kasii wadna meesheeda qaybta koowaad su'aasha maxaa la dhahayay sideedaad ama example-kii toddobaad qaybtiisa koowaad ayaan ka shaqeeyay marka qaybtaas hore way kala go'day laakiin waan kasii daba xiriirinayaa midaasna waan soo dhigi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo midaani la sii socota laakiin su'aasheedii labaad su'aasha B maxaa la ii weydiiyay su'aasha B maxaa la ii weydiiyay aan hal mar ku laabto su'aasha B waxaa la ii weydiiyay maxay ahayd inaan soo saaro tan 45 minus theta inaan soo helo soomahan aan raadiyo marka maxaan leeyahay tan 45 minus theta tan 45 minus theta iyadoo iska fududahay iyadana waa easy tan 45 minus theta meesha ay taala waxaan leeyahay horta meeshaani maxaan haystaa ani tan 45 minus 45 ka A u qaado tan B u qaado tan A minus B miyaan haystaa mise tan A plus B waxaan haystaa sida iska cad tan A minus B qaacidada tan A minus B marka waad iska qor intaadan is wareerin horta waxaad tiraahdaa tan A minus maxaa waaye B qaacidada marka waad iska qorto hal inta waxay la mid tahay qaacidada maxay ku la mid tahay tan A minus B maxaa lagu heli jiray dabcan waxaa lagu heli jiray tan A minus tan B oo loo qaybiyo 1 plus tan A tan B inta baan ku heli jiray qaacidada aan qorto marka tan A minus tan B oo loo qaybiyay 1 plus tan A عفوا tan A lagu dhuftay tan B okay qaacidada buuxda waan qortay haye waxaan leeyahay marka tan A minus B maanta yaa A minus B yaa note waxaa tiraahdaa marka A mar waliba waxa ku bedelan doonaa 45 B na maxaan ku bedelan doonaa B na waxa ku bedelan doontaa waxa la yiraahdo theta meesha B ku aragtidna theta ku bedelo bas adoo qaacidada maray waxba ka bedelaynin haye aan dhahay marka tan A da maxaa ku bedelaa la meeshan tan A minus B soomaan A maxaan ku bedelanayaa hadda A waxaan ku bedelnaa 45 minus haye B maxaa ku bedeshaa hadana B waxaa ku bedelataa theta ku bedelo waxaan leeyahay B maxaan ku bedelanayaa theta inta in leeyahay gartaa maleena okay waxaan qaacidadan rabaa inaan ku shaqeeyo mid kasta waxaan ku bedelanayaa marka aan qaacidadan ku dabaqaya tan A minus B waxaan leeyahay tan marka qorto A maxaa gashanaa isku ogaay A waxaan haystaa 45 soomaan A 45 ku bedelo waxaad tiraahdaa A عفوا 45 هربا ايه waxaan ku bedelnaa booskeeda 45 haya minus dheh tan B tan marka qorto B maxaan ku bedelnayaa hadana soo theta maahan theta ku bedelo booskeeda waxaan ku bedelinaysaa theta okay hoose imo hadana qaybtan hoose aan rabaa hadana inaan bedelo 1 plus sideeda aan soo qaato waxaan leeyahay 1 plus tan A bis aan rabaa inaan bedelo A maxaan ku bedelnaa 45 oo ku dhacsan tan theta sida soo qaado sababta ma B maxaa ku bedelnaa B maxaa ku bedelnaa idana theta ayaan ku bedelnaa B na theta ku bedelo enough inta waan sameeyay haye waxaan sameynayaa marka kale special angles tanka goormo 45 yahay tanka goormo 45 yahay sida iska cad tanka wuxuu 45 yahay markii tanka 45 1 ayuu yahay Soomaa tan 45 meeqa waa 1 sidaas aan rabaa tan 45 1 ayuu yahay haye aan ku bedbedesho marka tan 45 kasta arko waxaan ku bedeli doonaa 1 special angles kadib ugu laabo tan 45 waa 1 tan 45 meeqa lahay 1 minus soo qaad calaamada tan theta iyadoo misbedesha maya sida soo qaadataan theta waxba ha bedelin oo loo qaybiyay 1 plus sidii soo qaado 1 waa number 1 plus leh 1 plus hay tan 45 maxaan ku bedelanayaa dhahay 1 lagu dhuftay tan 45 iyo tan theta way isku dhufnaan Soomaan tan 45 haduu 1 yahay 1 lagu dhuftay tan theta dheh marka 1 lagu dhuftay tan theta okay inta baan haystaa loo qaybiyay عفوا waxaan rabaa inaan dhaho shaqada ugu dambeysay inaan qabtaan rabaa meesha waxa ii yaala 1 lagu dhuftay tan theta 1 bisa tan theta ku filan shaqada wax kale ima harinba inta la eego la siidaa meesha aan sii dhigto waxaan leeyahay
waxaan leeyahay 1 plus tan theta sideed u soo qaado 1 plus tan theta sideed u soo qaato iyadu عفوا 1 plus theta din 1 minus andaha minus y sideed ku soo qaado qaybtan hoose 1 plus markaan dhaho 1 tan theta ku dhufo hal tan theta din wurf ma soo baxaya halku waa asal midoorshe tan theta ay soo laabana soo ma marka waxaad tiraahdaa tan theta qaybtan labaad inta bay ugu egtahay waxaan rajaynayaa idan in la fahmay insha Allah taala qaybta saddexaad aan galnay maxaa la dhahay example ka toddobaad qaybtiisa saddexaad ee C ayaa si la mid ah waxa la diray waxa la yiri sin 180 laga jaray theta soo ujeedid maxaa haystaa horta sin a minus b soo ma haystay qaacidada la qoro mar waliba sin a minus b aan qorto sababtoo ah qaybtaani 180 waxay la mid tahay a theta waxay la mid tahay b waxa la marka sin a minus b waxay la mid ahaday qaacidada aan qorto dabcan waxay la mid ahaday sin a waxay la mid ahaday sin a cos b minus iyadoo calaamad isma bedesho minus maxaa waaye cos a sin b inta bay la mid ahayd sabab qaacidada dib ugu laabo oo dib u fiiri waxay la mid ahayd sin a cos b minus cos a sin b okay ano og inaan eeda wato 180 maxaa wataa waxaan u jeedaa inaan wato 180 waxaan kale u jeedaa b inaan wato theta inaan wato ayaan u jeedaa okay ano inta u jeeda marka b waxaan wataa theta bas wax kale baa sameeynin sin a minus b samaan sin a booskeed maxaan gashanayaa eedan booskeed maxaan gashanayaa 180 wax kale ma sameeynin waxaan leeyahay 180 minus ka soo qaado haye b booskeed maxaa gashataa theta un gali b booskeed waxa gelisaa theta wuxuu la mid yahay marka haye qaacidana ku dabaqa waxaan leeyahay sin a waa tan soo mid sin a maho a kasto aragti maxaa ku bedelinaysaa 45 leeyahay sin a sin 45 dheh cos b maxaa ku bedelinayaa theta ayaan ku bedelinayaa cos theta minus cos a hadan tim waxaan leeyahay cos a booskeed maxaa ku bedelataa 45 iyo sin b booskeed maxaa ku bedelataa theta b booskeed theta ku bedelo inta in la ilahay oo maleena inta marka taagana waxaan leeyahay sin 180 laga jaray intaana sideed u soo qaadan rabaa sin 180 laga jaray theta ولا ميد yahay sin 45 ما يقول ميد yahay sin يعني عفوا 45 ما ماشان dhahay عفوا 45 ما هن ماشان waa 180 ماشان aan ka qaldiyaa 180 ماشان 45 aa ku dhahay 180 عفوا 180 wataaya عفوا المام هذا المكجره عفوا 180 رما sin 180 waa imisa sin ka markuu 180 uu gaaro maxaa waaye waa 0 soomaan marka lagu dhuftay dheh ilaa 180 cos theta soo ku dhuftay wuxuu ku dhufsan yahay hadana cos theta ku dhufsan yahay marka sin 180 lagu dhuftay cos theta ku dhufo minus ka soo qaado cos 1 cos 180 muxuu la mid yahay hadana cos 180 special angle iska fiiri wuxuu la mid yahay cos kana 180 wuxuu la mid yahay -1 ayuu la mid yahay samaha oo ku dhufsan isagan muxuu ku dhufsan yahay sin theta ayuu ku dhufsan yahay marka sin theta ayuu ku dhufsan yahay wax kale ma sameeynin sin 180 ayaa special angle iska waxaan ogahay inuu ila mid yahay 0 tabaan ogahay cos theta na sidiisa baan soo qaatay minus kan sharciga waan soo qaatay minus ka sharciga waan soo qaatay cos 180 waxaan ogahay inuu la mid yahay -1 sin theta uu ku dhufsan yahay waan soo qaatay isagana inta marka marayo tan sidaa aan soo qaato waxaan leeyahay sin 180 laga jaray theta okay inta marka marayo marka 0 ever waxa ku dhufataa cos theta ever dabeecadiisa waa aqaana waa burburiye 0 way keen doonaa haye -1 ku dhufo meeqa waay
وبلاس 1 سماها حواي بلاس 1 أو كل فسن نحن كل فسن هنا ساين تيتا ساين تيتا أيو كل فسن وقدام بين مركا ساين بقول إيو سيديتن لغا جري تيتا سيدا وسوقاتا تواسكو سو غوري كرتا هدا دونت بقول سيديتا سيدا وسوقاتا ساين بقول سيديتن لغا جري تيتا سيدا وسوقاتا انت waxay la mid tahay ibr muxuu badalaa ibr hadii waxa lagu daro muxuu badalaa may hal sin theta ku faahimisa sin theta ugu dambeyn jawaabta ugu dambaysa waxay soo baxay sin theta ayaa soo baxday saddexdeeni su'aal hashi su'aal halka example ee ka koobnaa saddex su'aal ii weydiiyay inta ayuu inoo ogyahay waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan insha Allah ta'ala